شاء الله المهن وحبرشة وحول بعناهم بان وحمالنا رجي لما بحيوا كي جوج حتى وحول مطرها oo nin laga tilaabsaday buu noqday had burburka qoysaska Soomaaliyeed oo ku soo badanaya xeryaha qaxootiga ee Dadaab ayaa saameyn ballaaran ku yeeshay ubadka iyo dumarka lagu deeriyay qaarkood ilmaha kadib markii raggii dhalay ay kala tageen qataan bixin lahay ilmaha dhaqaalaysan day dhaqaalayna bilcaanta dumarka ay dhibna iska daayaan Amina Shirasiyaad waxaa lagu furay 8 caruur waxayna sheegtay in hagardaamooyin kala kulanto saygii furay siday warbaahinta u sheegtay ay haysta dhibaato aad u weyn inuu ninka ilmaha uu furo ugu dayacay oo haddana bas guriga aan ku haysto aniga aan qajaajifto oo deen idaaq aan ku dhistay intaas soo bisay dhowr 5 sano lacagtiisa aan iska shilmeynay oo haddana iga soo baxsaday iga soo eriyo banaanka iga keenay oo uu dhahay ana iskalanaya guriga iga bax gurigana ana iskalaha oo dhistay oo 5 sano lacagtiisa bixinay oo shishil u bixinay intaan ka qaatahay uu iga soo bixiyay shishilna lacag beelna ima si ilmihi hataa 8 cunug 5 xabaan haysta 3 daweyneed taqayle iyo tuwa hataa sun iga cabto oo iga fiigto ilaa hadda meelaha Nairobi iga maqano ilaa hadda meel aan ku sheegi karno iga carartay Amina ayaa xustay in daryeel xumada caruurteeda u dheertahay dhibaatooyin joogto ah oo ay kala kulanto ninkay ubadka u dhashay balse ay kala tageen ilmihi waa iskaga soo carar ilmihi 5 cunug oo yaryaraad asaga si uu ag fadhiyo 5 habeen markay asaga ag fadhiso iskaga soo carartay ana ii imaadeen hadda ana ila joogan guri kira ah la idajii gurigan kirada islaamka wuxuu dhaanaha ka ku aruurnayna oo ka bixinayna bal inta ku hayso 5 cunug intii lawada bilood laga gaaro naftaada ku badbaadso saafu ii soo qaato guriga hataa wuu kala gooy albaabka hataa laba qalbac waa guriga waan iskaga soo cararay anoo keligay iskaga soo cararay 5 cunug hataa waan uga soo tagay 5 cunug 5 habeen say u ag fadhid maalinka dambana way iskaga soo carareen hadda ana haystaa 5 cunugna ana haystaa 3 inta waxaan u maleynayaa aan kala tagno naagtan say ku noosho kaal naftu ka go'o saafu ugu dawata toori iyo wata 24 saac waan kala goyn laba qalbac aan ka dhigana talkeed kaaleha ay qabsaan guriga ha ii dhaafiyaan 24 saac soo Anise Cabdullaahi Cabdi waxaa lagu furay 5 caruur oo aan biil iyo daryeel lagu siin waxayna dantu biday in ay shaahay karisay ku wareejiso qaybaha kala duwan ee suuqa xirada qaxootiga Dhagaxley sifay u hesho masruufka caruurteeda in ilmaha lagu dayaco oo ayaga ay wax maalaan u wareegaan isas ku biilaan yaa ku dayaco raga sababta waa dumarka diiba ay raga kala tagaan inta badan ciyaalka lagu daryeelo bilcaanta raga Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin haweenka la qabo in la biilo oo haweenkii la furo aan maxal dhijir biil bay ku laheen kuma la hadii banaagtaan la furo ilmahaas ayagana maxal dhijir qori qiiqayso waa la sala tuuraa sida Soomaalida ay raga Soomaalida ay aaminsan yihiin halka Shanqara Xasan Aadan waxay ka mid tahay dumarka xirada Dhagaxley waxay dhankeeda qirtay dhibaatooyinka lagala kulmo burburka qoysaska Soomaaliyeed ilmaha way ku dayacaan oo ilmaha biil kuma siiyaan maxal dhijir inta ilmaha lagu furaa laga danaysta hooyooyin badan oo ilmaha dhaba ku dhibaataysan way joogan magaalada ay buuxaan sababta biil la'aanta keenaysa ma qofdu ninka biil u haysan gabadh uu furi iskiga tay uu dayacay marka dhibaatada jirta kaas caruurtu wuxuu dayaxaa leeyahay inuu iska yahay maqayl oo qaad uu cunayo waxba uu shaqo fiican u haysanin wixii uu haystay isaga ay ku filneenbo ilmihii wuxuu siinay baan leena jira oo iskiga danaysanay Cabdullaahi Cabbaas Cabdullaahi oo kamid ah waxgaradka xirada Dhagaxley ayaa sababeeyay burburka qoysaska Soomaaliyeed ee xeryaha wuxuuna talooyin muhiim ah u jeediyay ragga iyo dumarka Soomaaliyeed qoyska uu burburayo marka waxa meesha ka dhashay ixtiraam la'aan laba qof aan isla ixtiraamaynin marka qofka kastaba wuxuu rabaa inuu maaragtay shakhsigiisa iyo maskaxdiisa u isticmaalo laakiin haddii la kala dambeeyo oo gabadhana waaqaceed iyada ay leedahay ay istaagto oo raggana uu isan khayrul mas'uulnimada iyo jaadcunka iyo adduunka uu ka soo baxo waxaan filayaa in wax ay noo hagaagi lahayn oo dib u laabano oo sida diinta ay sheegaysaan u laabano balse hadda waxaa socota garbeeytan wax la yiraahdo oo maaragtay sinaan ahaana socota rag iyo dumarka marka waxaan tala ku soo jeedin lahaa in dumarkana inuu dumar yahay oo ninka maaragtay inuu xil badan uu ka saaran yahay ilaa maadaama Ilaahay uu yiri macnaha libaasu lakum wa antum libaasu lahunna darbaad isu tihiin
haddana qawaaniintan ragga maaraha qawaanka wax yar loo dheeriy haweenka kala tagaan ay qaarkood hilmaamaan ubadka ay dhaleen mas-uuliyaddii ka saarnayd dad badan oo ragga ah oo iyagana khayrul mas-uul ah oonan garanaynin xilka ay gabadha ka saaran tahay ama ka mudan tahay aanan jirin fara badan baa jira oo ilmahooda ay iska dayacan yihiin oo maaragtay aanan dan ka gelaynin 9 saac habeenimo 8 saac dhowr jeer baan hadda maxkamadaha aan tagnaa waxaan aragnaa meel oo maaragtay gabadhii ay ku saaxan tahay nin waxaad arkaysaa oo iska joogo oo 6 bilood haaskiisa aan u tegin oon gurigeedii iyo waxay ku nooshay iyo waxba aan arkin intuu kuma uu iska joogaa oo magaalada iska joogaa muu iska qayliyaa waalidka ayaa loogu baaqay inaysan hilmaamin mas-uuliyadda ka saaran korinta ubadkooda carruurtooda inay iska korsadaan oo habeenka day furaan oo dayacaan inay ilmahooda iska korsadaan oo waxay siin karaan oo u wadaan iska siiyaan maamooyinkana iska ammaangeliyaan oo nabadgelyo ay siiyaan unbaan ka codsan lahayn masayrka isfahan la'aanta iyo dhaqaale xumo ayaa sabab u ah burburka qoysas badan sida ay qabaan qaybaha kala duwan ee bulshada maxaa keenay waa isu dhacna adiga naadu xagga ku aroostay 3 sano 4 sano uu samacnaan isticmaalka muqaadaraadka sida qaadka ayaa la sheegay inay qayb ka tahay burburka qoysas badan sida ay qabaan dheergaradka bulshada maxamed baaruud xuseen warbaahinta Star Dadaab